السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى ما waxayna wadaa barnaamij halka ay kaga muuqdo waxa la yidhahdaa cash book. runtii waa barnaamij kulli aniga qof ahaan aad ii anfacay una malaynayo in inta badan oo inaga mid ah ay anfici doono. barnaamijkan waxaa lagu manage gareeyaa ama lagu maamulaa lacagyooga income-ka ah ee ku soo gasha dhinac walbay kaa soo gasho waa mid si free ah kugu soo gasho ha noqoto oo qofku siiyey ama ha noqoto mishaar wax la mid ah adigu dhaqaalaha ku soo gala ayaa lagu maamulaa barnaamijkan. marka waa isla arki doonaa ilaahay idinkii insha allah. haddaan interfacekiisa kore aan wax yar ka iraahdo, halkan waxaa weeye meesha maaragtay akoonka magaciisa ay ka soo baxayso. halkan waa meelaha aad markaa samaynaysa aad ka xulinaysa haddaad maalin rabto akhbaar ah, haddaad rabto week, haddaad rabto bil, haddaad rabto sanad. saas oo kale halkan waxaa weeye barta laga soo gasho income-kaaga. halkan waa barta laga geliyo expenses-ka. halkan waxaa ka muuqda oo mataqaanaa yaala income-kaaga. halkan waxaa imaan doona expenses-ka, halkan haraadiga imaan doona simply qaab saas u shaqeeya. marka halkaas saddexdan dhibcood aan furo, kan waa home-ka, kan waa calendar-ka, summary-ga oo ah yani khulaasyo lasoo khulaaseeyey dhacdooyinkii ugu dambeeyay dhacay, all transaction haddaa u baahan tahay transaction dhammaan inaad akoon cusub ku darto iyo inaad export garayso iyo waxyaabo kaloo lamid ah intaa. marka insha allahu tacaala maanta qaybta hore waxaan iska fiirin doonaa sida mataqaanaa loo soo gelsho dakhliga soo galay. okay, marka dakhliga soo galay aan soo gelinayno waxaan ka bilaabaynaa income baan leenahay. income intaanan dhihin waxaan ka tegay cafwan horta sida loo samaysto akoon cusub. akoonka waa muhiim, waa meeshii aad lacagta ka maamul lahayd weeye. waxaan leenahay add account baan leenahay. marka add account idhaahdo halkaasaan ku dhufanaynaa pluska kabacdi waxaan leenahay new account. marka magacaas kala bixinaynaa, tusaale jaamac oo kale, jaamac 12 oo kale, maybe intaacay kale ku jiraan. okay, wuxuu ku leeyahay start transaction, bilaaw dhacdooyinka. halkan waa jaamac akoonkii jaamaca weeye. haddaan furo allahuma mustacaan calaa maa tasifuun. okay, continue. okay, halkan waxaa waaye dhammaan waxyaabihii aan horey u soo gelinay. jaamac 12 waa kaa noo soo baxay. marka hadda waxaan leenahay income baana soo galay. income-ka wuxuu ahaa $100 tusaale, $100 buu ahaa. wuxuu naga soo galay mushaar oo kale naga soo galay. okay, category-giisa muxuu ahaa inaan category u sameyno muhiim. waxaan leenahay category-giisa muxuu ahaa category-giisa wuxuu ahaa salary buu ahaa. okay, safe baan leenahay. marka waxaa dhacay mushaar baana soo galay cash $100. income-kan waxaa weeye ujeedaa 100. halkan expense ma dhicin, haraadiga noo yaalna waa 100. okay, si marka aan u hebin dhinaca expenses-ka waxaan leenahay expense samee. expenses waxaan bixinaynaa oo kale waxaan leenahay $50. waxay noogu baxday kilo ayay nooga baxday. maybe kadib waa soo iskaga tegi karaa, dhib ma laha. safe baan leenahay marka. okay, maxaa dhacay mar labaad fiiri, kilo ayaa baxday oo cash ah $50. halkan fiiri 100 baa expense ahayd income-keeni, 50 baa ka baxday. waxaa soo haray 149 intuu keenay. sax, halkana waxay 199 149 baa noo haray. okay, halkan aan edit garayno marka, sorry, halkan aan edit garayno mushaar leh, edit leh. halkan waxaan ka dhigaynaa allahuma mustacaan 100. yes 100. okay, simply 50 baa noo haray. mar kale ayuu wadana expense kala sameeyey. wadaadkan wuxuu sameeyey $30 buu sameeyey.
kabacdi muxuu ku baxshay adeeg oo kale adeegaasoo kale ku baxshay. Okay, safe baan leenahay haddana. Okay, simply waa ujeedaa 30 baa la baxshay. Halkan waxaa ku haray 20 baa hadhay. Saas baa halkan u shaqeeyaa. Haddaad baa daily waa kana oo maanta wixii dhacay maanta haddaad tiraahdo waa kan waad heli kartaa. Weekly aan leeyahay maantana waa kan, yearna waa kan. Okay, halkan markaan soo furno meesha iyada ah yarta aan furno aan transaction aan dhahno waxaan dhan waa transaction badan oo hore aan u sameynay. Annagu waxaan ka qaadanaynaa account aan leenahay. Akoonka u baahanahay waxaa weeye Jama akoonka Jama u baahanahay. Jama akoonkiisa waa kan wixii dhacay dhan adeegyo kulli kiradii Allahumma mustacaan mushaarkiisa boqol ahaa inta hadduu ahaa dhan waa $100 waxa weeye $20. Mostly barnaamijkan saasuu u shaqeeyaa. Waa runtii barnaamij aniga aan aad uga helay aadna ii anfacay. Waan rajeynayaa idinkuna inaad mataqaanaa aad tijaabin doontaan aadna fiirin doontaan. Programkan waxaa laga soo degi karaa Play Store-ka iyo App Store-ka labadaba wuu ku jiraa. Marka si simple ayaa looga soo degi karaa mobilkaaga ku maamulan kartaa. Insha Allahu tan iyo intaan muuqaal kale oo kale ah aynu ku kulmi doono. Waxaan kaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.